بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal waxaa mar dhow inoo dhalan doona sanadkii cusbaa ee islaamiga ahaa ee loo yaqiinay hijriga oo ay saxaabada ka hajireen xaalad xun una hajireen xaaladtii hore ka fiican oo u horseeday horumarka ummadda islaamka. anagana walaalayaal haddii aan Soomaali nahay waxaa sanadkan cusub nala gudboon inaan nafsad ahaan ka hajirno 3 waxyaalood oo aad u curyaamiyay horumarka waddankeena ama horumarka ummaddeena. 3 waxyaalood oo ay kala yihiin colaadda, warxumata shiilka iyo qabyaaladda. haddii aan ku bilowno colaadda marka ay ka dhaxayso dad walaalo ah oo isyaqaan, qofku guulaysanaya ma jiro, mar walba barbardhac ay ku dhammaanaysaa. waxaa kaliya ku dhammaanaya dhallinyaradeena iyo hooyooyin badan ayaa ilintooda ku dhammaanayso. odayaasha Soomaaliyeedna abawayaasha Soomaaliyeed horey waa inooga digeen. markii aad fiiriso maamaahyadooda waxaa ka mid ahaa ninkii habeenkii codkaaga yaqaano maalintiina raadkaaga yaqaano lalama coloobo. rag waxaad walaal ugu weydid waran uguma heshid. rag waday oo waayay waxay walaalow ku dhaamaan. rag idaa kuguma daayo, aanu isdayno ayuu kugu daayaa. marka runtii xalkeena wuxuu ku jiraa dib u heshiisiin dhab ah oo geedka quraca hoostiisa loo fadhiisanayo walaalayaal. runtii markaa fiiriso dib u heshiisiinta hore u dhacaysay dadkii kuma heshiinin ama beelihii isdagaali kuma heshiinin, siyaasiyiinta kaliya ayaa kuraasta ku heshiiyey. nabarkii weli lama daabeen. taas ayaa sababtay in siyaasaddeenu ay aad u cakiran tahay. siyaasaddeenu waxaa haysta cudurka loo yaqaan oo odayaasha Soomaaliyeed ay dhaheen aan wax khalano midiyahana kala qarsano. cudurkaas waxay sababtay in siyaasiyiinta marna ay isla jiraan marna kala jiraan, taasoo shacabka Soomaaliyeed daalisay. marka waxaan leenahay xalka kaliya waa in dib loo heshiiyo, geedka quraca hoostiisa la fadhiisto. in dhulka la fadhiistaa xigmada ku jirto. qofku markuu u dhow yahay caradii iyo Ilaahay ka uumay tawaaduc ayaa soo galayo. waa ka fiican tahay dib u heshiisiinta hoteelada khayaaliga iyo kuraasta lagu fadhiisanayo, kubashiinka lagu cawaayo. waxaa ka fiican geedka quraca hoostiisa la fadhiisto. marka waqti kasta hanagu qaadato aan heshiino Soomaaliyey. haddii aan u gudbo tan labaad oo ina curyaamisay ee ah warxumata shiilka, maalmahan daawadayaal waxaa aad u batay dad badan oo adeegsanayo social mediaha oo ay isugu jiraan odayaal, duubweyn, dhalinyaro aftahan ah oo laakiin laablakac ama caadifad iyo caro ay hogaaminayso ayagoo adeegsanayo warbaahinta si qalad ah oo cawaaqib xumo keenayso. macnaa taasna waxaa fiican in laga fiirsado. maxaa yeelay tusaale ahaan markaa fiiriso dalka Rwanda dhibaatada dhacday 70% waxa ugu sabab ahaa dadka wax ka qoraya waxay dhaheen raadiyooga oo Rwanda raadiyooga ayaa dadka ku dhiirigeliyay inay islaayaan. 100 maalmood ayaa waxaa ku dhimatay 800,000 oo qof. hubka la adeegsanayna ma ahayn madaafiic, waxay ahayd baangadii loo yaqaan machete ay u yaqaaniin ayay isku laayeen. marka raadiyooga ayaa u sabab ahaa. dagaalka kadibna raadiyoogaas ayaa wuxuu aad ugu shaqeeyay nabadii. marka waxaan leenahay dadka warbaahinta adeegsada, dhalinyarada, odayaasha, macnaa u adeegsada warbaahinta nabadeynta ummadda. noqda nabadoon. abawayaasha Soomaaliyeedna waa nooga digeen. macnaa maamaahyadooda markaa fiiriso waxay istusaysaa afxumo. nabadna waa kaa kaxaysaa, colaadna wax kaagama tarto. uli waa qabowdaa, usha waa qabowdaa, erey xumise ma qabowdo. nabigeennana allahuma salli wasallam caleyh carabka aad ayuu ugu degay. marka walaalayaal waxaan idin leenahay aan joojino warxumata shiilka. haddii aan u gudbo midda saddexaad oo ah qabyaaladda markii loo adeegsanayo sida alla amray waa sida canabka oo kale, yacni waxtar uu leeyahay haddaa cunto. laakiin haddii aa u adeegsato si aan alla raali ka ahayn, canabkii ayaa wuxuu isku beddelayaa khamrigaasoo sakhraaminayo dadkii, ha isugu jiraan siyaasiyiinta ama shacabkii oo dhan sakhraaminayo. marka waa tanay qabyaaladdu Soomaalidoo dhan ay sakhraamisay.
walaalayaal waxaan idin leenahay qabyaalada u adeegsada sida saxa ah oo ilaahay amray oo ah inaa isku aqoonsataan. tusaale waxaa jirtay, waxaan xasuustaa intuu dagaalada dhicin ka hor ayaa badeecadaha Dubai ka imaada ayaa waxay imaan jirtay dekada Boosaaso. marka doon ayaa alaab noo fuushay oo Boosaaso timid. abtigeyga ayaa baxay. abtigii waxaa la yiri waxaa raadisaa nin la yiraahdo Maxamed Cabdi. markuu Boosaaso tagay waxaa la yiri Maxamed Cabdi waa badan yahay, waa in ayo reerkee waaye sheeg. marka abtigii wuxuu yahay aniga ma aqaan. markii dambe suu u raadin ayaa waxaa la yiri waxaa dhahdaa ina hebel oo reer hebel ka dhashay, marka waa helaysaa. sidii ku helay. marka taasna waa inaad ku aqoonsato qofka. laakiin haddii aad u adeegsato si uu ilaahay raali ka ahayn adoo dhahayo anoo kalaan dheer reerkan maxaa jagadan leysiiyey, ama anaa ka sharaf badan, anaa kalaan dheer uu iga laan gaaban yahay. taas waxay soo gelaysaa tii ilaahay oo ibliis ugu carooday shaydaanka wuxuu yiri anaa ka khayr badan, anigaa daba iga abuurtay, asagana waxaa ka abuurtay caro ama dhoobo. marka shaydaanka taas darteed ayuu ilaahay ugu soo carooday, ayaa la soo eriyey. marka ilaahayna aad u necab yahay kibirka. taasna kibir ayay soo gelaysaa. soomaalina haddaan nahay waxaa nugu jiro runtii aan aniga ka kow ahay kibir dhalanteed ah. marka kibirkaas dhalanteedka ahna waa ilaahay tan ugu necban yahay. meesha uu ilaahay nagu haysto waa meeshaan. macnaa Soomaalidu waa dad fiican, waa dad ilaahay jecel yahay, laakiin meesha uu ilaahay nagu haysto waa meeshaan kibirka dhalanteedka ah. marka kibirkan dhalanteedka aan iska dayno. aa fiiriso qabaa'ilka yaryar iyo kuwa waaweyn waa iskaamilaan. dadka wax dhisaya ayaa xikmadda waxay ka barteen dhagaxa weyn haddii aan dhagax yar la cuskin ma cashoomayo, derbiga ma noqonayo derbi xoog leh. yacni wuxuu u baahan yahay dhagax yar celiya. sidoo kalena dhagaxa yar kaligiisa derbi ma samayn karo. marka derbiga xoogan waxaa lagu sameeyaa dhagxaan yar iyo dhagxaan waaweyn. marka qabaa'ilka yaryar iyo qabaa'ilka waaweyn oo Soomaaliyeed waa isi kaamilaan, derbi xoogan ayay sameeyaan. laakiin maadaama hadda la kala daadsan yahay derbigii waa daciifay. marka waxaan idin leenahay qabyaalada aan u adeegsano sida ilaahay rabay. runtii alxamdulilah sidii hore waa ka fiican tahay xaaladda iyo diilo ayaa muuqda. maxaa yeelay Soomaalida hadda waa isguursatay, waa la isku dhex milmay. yacni shacabka marka aad fiiriso qabiilka waa ilooween. mar dhow waxaa dhici kartaba in la yiraahdo Soomaali ha kala sheegin. macnaa markii aad fiiriso qabyaalada xoogaa waxay ku dambaysaa siyaasiyiinta iyo diyaasbarada oo xoogaa ayagana weli qabyaalada ku dambayso. diyaasbarada walaalihayna waxaan leenahay iska bixiya kharasta qabiilka si aan horumar u gaarno. walaalayaal insha allahu tacaala Soomaaliya xaaladan waa ka baxaysaa, laakiin waxay u baahan tahay qof walba oo shakhsi ah Soomaali ah inuu nafsadiisa wax ka bedelo oo tallaabo qaado. runtii dhibaatada haddana haysato waxa waaye aan ku jirno yacni waranka midka kugu suraa iyo midka kugu celceliya ama kugu ligliga kee baa daran. yacni waranka koowaad anaga isku surnay, laakiin cadowgan waa nagu ligligayaa cadowga dibadda. marka khaladka anagaa iskale. yacni warankii aan isku surnay aan iska siibno si uu ilaahay cadowga dibadda noogu celiyo. marka waa inaan qof walba shakhsi oo Soomaali ah uu niyeystaa inuu isbeddel la yimaado oo qalbigiisa xumaatada ka bixiyo, in qalbiga la isku furo. sanadkan waxaan rajaynayaa sanad sulux ah oo ilaahay barwaaqadii iyo nabaddii Soomaaliya ku soo celiyo inuu ilaahay nooga dhigo biidni illaahi alkariim. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii horumari ummadaada oo idin soo jeediyeen walaalkiin Baazi Xaaji Busuri. waxaa kaloo isku soo dubaraday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. walaalayaal barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. haddii aad rabto inuu si toosa kuu soo gaaro fadlan isdiiwaangeli oo subscriber ka noqo, una gudbi walaalihiin Soomaaliyeed si oo yacni Soomaaliya oo dhan ay yacni cuduradan na haysta ay isaga baabi'iyaan oo waddankeeni yacni waddan baraka leh noo noqdo hadduu ilaah yiraahdo. jazaakum allahu khayran dhageysashadiina. maca asalaama. khayr ayaan idin rajaynaa. sanad wacan oo wanaagsan. maca asalaama.